وأنا قبلت على بركة الله زواج موكلتك لنفسي زواجا شرعيا على كتاب الله وعلى سنة رسوله hibe iyo cabdulxafiid waa labada curus ee Masar u dhashay kana soo jeeda tuulada Nooba waxay u dabaaldegayaan xafladoodii arooska ah caadooyinkan dhaqan waa kuwa aboobayaashooda ay ka soo dhaxleen hadaba tuuladana sidee looga dabaaldegaa marka lamaane ay isguursanayaan gabadhani waxa ay ka mid tahay dadka tuulada ku nool waxaana lagu casuumay inay timaado arooskan waxaan diyaarinaa caruusada ay leedahay anaga waxaan nahay beeraley waxaana xil naga saaran yahay diyaarinta caruusada maalin ama 2 maalin iyadoo ay ka dhiman tahay gabdhaha tuulada ku nool iyo asxaabteediba waxa ay noqdaan kuwo cilaansaarkeedii ka qayb gala cilaanka midka gaduudan 2 maalmood ilaa iyo maalmo kale ayuu u saarnaan karaa ilaa iyo 5 maalmood ayaa la gaarsiiyaa qaab loo saaro ayaana jira أصحابها برضو بيجوا معاها وبقى بيطلبوا حاجات مثلا نوبية تانية بس بتفاصيل أقل caruusada waa ay ka duwan tahay maalmahaasi waxay noqotaa mid gacmaha iyo lugahaba meelo sarsare cilaankaasi loo geeyo loona saaro aad ayay muuqaalkeedu u bilicsan tahay waana ay qurxoon tahay waxay u muuqataa boqorad maalintaasi cilaanka loo saarayo sida loo qurxinayo marka ugu horeysa aad arkayso xafladda cilaansaarkeedii qoyskeedii ayaa keenaya goobta waxaana ka qaybgalaya dhammaan dadka ehelka u ah caruuska iyo caruusadaba asxaabteedii dhammaantood ayaa tegaya xafladdaasi أول مرة بقى أشوف العروسة ليلة الحنة فلازم يجيبها حد من أهلها فبنبقى في حفلة بقى والرقص للكل لأهل العروسة وأصحاب العروسة وأصحاب العريس dhammaantan innaga oo isku xidhan waxaan qaadanaynaa annagoo faraxsan doon waxaa la tegayaa webiga niil waxaana jirta in dhammaan tuulooyinkaasi la tegi doono ee Nooba احنا من كتر ارتباطنا بقى للنيل فزفتنا ودعوتنا للفرح فلازم بناخد مركب بنطلع في النيل ولازم نلف كل قرية في النيل annaga ahaan waxa waajib uu inaga saaran yahay dhammaan dadka ku nool tuuladaasi asxaabtii ehelkaba in ay dadka ay u digaan ayna u sheegaan in ay jirto farxad aroos ah dhammaan dadka tuulada degan iyo sidoo kale dadka kale jasiiradaha ka agdhow 10 maalmood ilaa iyo bil waa loo digayaa si ay farxadda ay uga qayb qaataan sida muuqaalkeedin kaga muuqata waa 3 rag oo iyaga u imaanaya qof tuulada degan una digaya ama u wacaya kuna casuumaya arooska jira نطلع كل قرية فلازم ناخد الأهل والأصحاب وندعي أهلنا بالنوبة كلها من جزر لأي قرية نوبية بنطلع إن شاء الله ناخد أسبوع 10 أيام شهر نوصل لجميع الأهل والأحباب إن يحضروا الفرح بتاعنا xafladda sidaani oo kale ah ee digriga ah ayaa waxa ay qayb ay ka tahay caado dhaqanka ay leeyihiin dadka ku nool tuulada Nooba ee waddankaasi Masar waxaa ka qayb galaya xafladdan caruuska aabihiisii adeerkiisa iyo ehelkiisii dhammaan wiilasha ilmaadeerada ay yihiin
waxa ay u dhigantaa mid ka mid ah caadooyinka dhaqan ee dadka tuuladu ay leeyihiin. لازم كان من طبيعة المولد بيبقى حاضر الوالد العم الخال وأهلي ولاد عمي وكده، وبنحضر نعمل ايه المولد اللي هو المولد اللي هو بنسميه الذكر. munaasabadda digriga marka ay soo dhammaato waxaa dib loo soo kaxeynayaa gabadhii iyadu cilaansaarka la geeyey, waxaana loo soo dhoweynayaa si wanaagsan, farxad ay ku dheehan tahay oo dhammaan dadka deggan tuulada Nooba ay soo xaadirayaan si ay u soo dhoweeyaan gabadhaasi cilaanka markii loo soo saaray dib ugu soo laabatay tuulada laga guursanayo. بعد حلقة الذكر ما بتخلص بننزل بقى نطلع نجيب العروسة وتحضر، ونجيب أدوات الحنة والريحة والمحلبية والحاجات دي كلها، وكل الناس وكل أهلي في النوبة حاضرين معايا في الفرح بياخدوا جزء من الحنة دي، يعني بيتباركوا بيها بيتفائلوا بيها خير. marka la joogo tuulada Nooba, xafladda nikaaxa ah waxay u dhigantaa mid weyn. aniga haddaan dhaho wax baan ka qorayaa farxaddeedii, dad imaanaya ma lahan sida loo imaanayo marka loo eego xafladda nikaaxa ee habeenkaasi guurka uu dhacayo. dhammaan dadka tuulada Nooba degan ayaa ka soo qaybgalaya xafladdaasi. daawadayaal sida aad u jeedaan waxaa hadda dhacaya nikaaxi cabdilxamiid. عندنا في النوبة عقد القران من أهم مراسم حفل الزفاف. يعني لو أنا فكرت أعمل كتب كتابي قبل فرحي الناس ما تجيش، فلازم أعمل ليلة الزفاف العقد القران عشان الناس بتيجي من جميع قرى النوبة كلها. زوجتك موكلتي ابنتي البكر زواجا شرعيا على كتاب الله وعلى سنة رسوله. waxaa dhici doona xilligaasi arooskii guud iyo waxaa la qaban doonaa munaasabadda xafladda weyn. munaasabadaasi oo ilaa iyo subaxii socon doonta oo ay dadka tuulada degan dhammaantooda ay ka qaybgalayaan. زواجا شرعيا على كتاب الله وعلى سنة رسوله. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. اجيب العروسه من الكوافير واطلع الاستديو اتصور، وارجع بقى نبتدي الحفل الزفاف، المراسم بقى الحفل حتى الصبح.